Waa siyaaradii 16aad ee macallimiinta waaweyn ee kala ah Macallin Maxamuud Sangaab iyo macallinkiisii Macallin Axmed Afraxow. Siyaarada macallimiinta ayaa sidoo kale sanadkan waxaa qayb ka ahaa xuska dhalashada xabiibkeena Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadaane. Macallimiintan oo sanad waliba waqtigan oo kale la siyaarto ayaa siyaaradoodu waxa ay ka dhacdaa xaafadda Goday degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. waxaana si wadajir ah u soo qaban qaabiya xirta macallimiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Hoggaanka siyaarada Macallin Axmed iyo Sheekh Cabdiraxmaan Qoslaaye ayaa ka hadlay siyaarada macallimiinta. intaasi kadibna waxaa ka duceeyay Khaliif Mawlid. الله أكبر كبيرا إلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله أكبر كبيرا مولانا الله أكبر كبيرا مولانا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم. سيارة معلمينتين قلبت خدمتي نو ختمتي سدح قلبود aan wadnay ay noogu dhamaatay hadii Ilaahay yiraaho dhikriga noo waxigaayo habeen dambo subax leeyliga ahay oo aan macallimkayna ka soo gaarnay oo dhafarka ayaa noogu xigaaya maalinka ku xigana oo isniintana khatinkii oo maaragtay siyaarti rasuulkayna sallallahu alayhi wasallam iyo macallimiintayna oo aan macallimkayna soo gaarsiiyay oo nafka geelahay aan ku dhiga jirnay aidana noogu xigayso macallinka wax banaanka jira wax baadiye jira wax gudaha jooga wax dugsiga jira intabay ka kooban tahay. Ilaahay maarata ha barakeeyo siyaaroodinkana Allah nagu kormariyo. Ilaahayna waxaan ka codsadaynaa ka tuugaynaa tawfiiqda inuu na waafajiyo. macallimiintayni waxayna bareen quraanka kariimkayna bareen. quraanka waa xilliyo fara badan iyo waqti fara badan ayay barashadiisa qaadanee. waxaa bilowga ka ahaay qofka ardayga haddii oo quraanka loo bilaabo oo alif baxmaalaha la soo baro waxaa lagu xijiyaa salaada. salaada sida fara badan waxaa dadka bara mucallimiinta waana acmaasha camalka ugu qiimaha badan waa salaada oo Ilaahay kugu xirayso. marka macallimiintayni maraaxil fara badan ayay naga soo mareen, abaal fara badan ayay noo suubiyeen. abaalkaas marka inagu suubiyeen iyo wanaagaas noo suubiyeen waxaan u abaal gudaynaa wanaagaasoo ah in qur'aan kariimka aan u akhrino, in khayraadka aan u akhrino, inaan adkaarta u akhrino, inaan sadaqooyin u bixino. intoodana qur'aankii ku soo aroortay waa wax sharciya. waxay kaloo ku soo aroortay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. معايا النبي عليه الصلاة والسلام وحونا يري
من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. النبي عليه الصلاة والسلام وحور قفك وناك إذن صوبيا أباك توما وناك قفك إذن صوبيا وناك لمده ولا إمادة حتى نكري كرينا إنا وناك صوبيسين فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم إلى أن إسكتراهن الله إله وناقيسي حقيسي وقدين marka hawshaan iskugu nimid wax kale ma aha waa ku camal fal qolki